kala sifogeyntii okay calanka uu sheegayo wuxuu yiri calamada dawlad deegaanada la watay kan waa kii Jubbaland baa la dhahayay kan waa kii Galmudug baa la dhahayay kan waa kii maxay baa la dhahayay kan waa kii Puntland baa la dhahayay kan waa kii Khaatuma la dhahayay calamo badan baa la soo galay ugu dambeyn calamadii oo dhan waa la wada dajiyay buu hal mid ka taagan budokii al-shabaab halkii laga taagay calankaas calan taagan ma jiraba calanka Khaatuma ka taagan al-shabaab iyagu hadda ka dhigeen iyagu taala laakiin calanku uu leeyahay waa kalarka madow taalada lagu buufiyay timihii dadka madowaan arma la dhaawac calanka an oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka xog waran waxaanuna qaybtan caawa idinku soo gudbinaynaa xogihii ugu dambeeyay ee ku xeeran dagaalka ka socda Laascaano oo ay isku horfadhiyaan ciidamada SSC ama Jamaahiirta Xaquudirka iyo maamulka Somaliland xogtaanu caawa idinka hayna waxay ka soo yeedhay dhanka Somaliland waxa ayna sheegeen in ciidamada ay isku dagaalayeen aagaasi ay yihiin al-shabaab iyagoo u daliishanaya taaladii ka dhex taagneyd magaalada Laascaano ee la oran jiray taalada shuhadada in calankii al-shabaab lagu buufiyay waxa ka jira waxa inoogu xog warami doona Muxyidiin Xarago dhanka kale waxa hadlay ninka wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland oo isna sheegay in dagaalka aanay ku jirin dawladda Soomaaliya sida uu sheegay Xasan Sheekh Maxamuud ee ay ku jirto ama kali ku tahay al-shabaab iyo Puntland xogahaas iyo waxa ka soo kordhay dhanka kale Muuse Bixi oo isna hadlay xogaanu idinka haynaa waxaan ku soo dhaweynayaa oo idinka la dhaxbaxaya وري محيدين حرقوا محيدين عبد الرحمن وندوهي داودياشنا سلام يا سلام الله عبد الرحمن وسين لو سoconnay ilaa xalay ilaa iyo shalaniski dambe ilaa maanta waxa jiray muran iyo wararka duwan ka soo baxay taaladii ku taalay magaalada Laascaanood maxaa murankaasi yahay taaladaasi murankaasi waxa uu ahaa waxaan horta la soconaa sool dagaal baa ka socda haye dagaalka ka socda waa dagaal in badan oo ilaa 6 bilood socda haye marka jamaahiirtu markuu dagaalku bilaabay ilaa haatan iyo waxaan la soconaynaa baaqyo kala duwan ay u diri jireen dadka mas'uuliyiinta ee ku matalayay Soomaaliland haye qofka go'aanka geesinimada qaateen ilaa hadda hayne waxa weeye Cabdirasaaq Khaliif waa gudoomiyihii baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliland haye oo isagoo xilkiisii haya ilaa xitaa gaarigiisii la tagay oo ilaa ugu dambeyntii uu sacashiro haye dad kale oo mas'uuliyiin ama xildhibaano ama taliyaal ciidana ama qaybaha kala duwan ee mas'uuliyiinta Soomaaliland ka mid ah oo jamaahiirtu baaq u dirayeen baa jirto inay dadkooda ay ku soo beeraan haye ayna dabeetana ayna soo raacaan dadkooda duqeynay haye hadaba dadkaasi waxay noqdeen laba qaybood qayb dhaga adeegtay me saddex qaybood baan dhihi karnaa haye qayb iyagu baaqyadii bay qaateen oo intuuna dagaalkan iyo khasaaro sii badnaanin bay xagga SSC mareen oo waxaan la soconay gudoomiye Xudur degmada Xudur iyo macnaha rag kale oo la mid ah inay tageen waqtigu dagaalku sidan ka sii fududaa qaybna waa qayb aan ilaa hadda aan xataa hadii ay soo dhibaan aanu maleynayaan fursad badan aan loo haysanin oo sida kooro oo kale iyo mahad cambaashi iyo nimankaas mas'uuliyiinta qaybna waa qayb kale oo iyaguna qaybta ku labo waxaysan oo dhawaanaha soo dhibay waxaan la soconay gudoomiyihii Gabilay inuu maalin dhaweeyay soo dhibay waxaan la soconay inta la soo dhibay ka hor in baaqyo loo diray dadkiisa inuu ku soo qayb galo isagoo title hayo oo faa'iido ku soo kordhinaya markan dadka ka imaado qayladan taalada ku saabsan xagga ka bilowda waan u socdaa Cabdiraxmaan gudoomiyaha ay soo dhiibay gobolka Gabilay leeyahay xilkii waa laga qaaday markii hore kadibna intuu xilka hayay jamaahiirta iyo dadkiisu baaqyada u dirayeen dhagaha ka diiday waa ugu dambeeyay horta raadkii ugu dambeeyay qof mas'uul oo Soomaaliland ka soo goosto xagga ku bira haye jamaahiirtu marka waxay diidan tahay dadkii noocyadaas oo kala ah nooc doonaha ama tayta ha wato ama dad kale oo laga shakisan yahay ama dad kale aragtida Soomaaliland qayb ka ah inta alladii shuhaadada iyo dhalinyaradii caalamka Suuriya la soconay maalinkii kaaraha lagu dhuftay gawaarida lagu dhuftay dabcan kaara iyo kaara ma baan u maleynayaa laakiin gawaarida ciidamada ARU-du ay wataan taaladii waxay isu bedeshay meeshii oo lagu jiro halgan meel sawiraan lagu galo oo dalxiis loo yimaado oo dumarku intii soo labistaan sawiraan ku soo galaan oo qofkii meel ka yimaado iska yimaado sida taalo caadi oo kale oo waa taalo fiican laakiin waqtiga lagu jiro marka taalada imika waxa la isku diidan yahay waxa weeye horta khilaafku ka yimaaday qoladan jamaahiirta ee dhalinyarada iyo dhammaan dadka SSC taalada macnaha waxay doonayaan in ay taaladu noqon meel inta sawiraan lagu galo ama qurba joog ha noqoto ama dad kale oo meel kale ka yimid ha noqoto meel kale oo ama Somaliland ama meel kale ka yimid
meel intii sawir lagu galo dabadeetana farxad lagu qaato inay sadxaladu hayno shahaado iyo dhalinyaro dhiigoodii maaragtay uu meesha ka soqon yahay marka dhalinyarada iyo dadku waxay diidan yihiin dadka imanaya ama qurbaha ka yimaadaan ama meel kale ka yimaadaan sawiraanta ku galaya kadibna iskaga damaanshaadaya kadibna iskaga laabanaya halkan waxay ku soo darsanaynin meeshana ujeedadoodu ah in sawir ku galaan okay markay taa diidanayeen maxay sameeyeen intaas markay halka taagan tahay taaladii waa la isku khilaafay oo waxa weeye siyaabo kala duwan dhalinyartii dadku waa iska garanaysaa waqti fikrado kala duwan baa ka soo yimid waxay taa samaysay in kalarkii amaba calankii lagu buufiyo markii hore in laga bedelo calanka markii hore ku buufsanaa waxaa loo bedelay calan dhiiga mar waxa la leeyahay madow baa laga dhigay imika ugu dambeysana calankii baa lagu soo celiyay dawladda hoose ee Laascaanood baa calankii khaatimo ku soo celisay oo imika calankii khaatimo ku buufsan tahay waxaan arkay abwaan yam oo calan yani dhiig xinjirda ay saa ku buufinaya kadib madowgi waa la iskala soo tagay madow baa mar lagu buufiyay mar casaan baa lagu buufiyay dhiig la leeyahay markii ugu dambeysay waxay noqotay in marka xamaasad badir moodaysan in jamaahiirtii dhalinyarta yar qaadayeen oo maartay maadaama yar dareenku yar kacay siyaabaha kala duwan baa loogu buufinayay caalamada iyo waxyaabaha kala duwan inta markay taagan tahay adoo horta calankii ugu dambeyntii kii khaatimo lagu soo celiyo lagu buufiyay taaladii inta markay taagan tahay Soomaaliland saaka dabcan Maxamed Kaahin baa hadlay oo shir sharci aqoonada iyo wax noocaas loo soo xidhayay baa Muuse Bixi iyo Maxamed Kaahin baa ka hadleen horta arrin dastuurkii waxa laga hadlayay baa hay'ado madala madaxweynuhu waa hadlay laakiin inta badan madaxweynuhu uma soo qudbadiisu Laascaanood ana ku shaqulahayn oo dastuurka iyo sidii dadka ay u noqon lahaayeen dadka ka hadlayay dastuurka si loo fahmi lahaa iyo dad aqoon-yahanada si uu yahaynta macnaha Soomaaliland uu soo ka hadlay dagaalka Muuse soo hadlay laakiin wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin oo lagu tilmaamay inuu yahay gacanta midig ee Muuse baa ka hadlay waxa uu calankii Soomaaliland calankii shabaab baa laga taagay Laascaanood calanka shabaab ee Laascaanood laga taagay kulay isagoo baad wasiirka la weydiin laakiin waxa uu yiri hore waxaan la soconaynayno sheegayno dunida iyo beesha caalamka aanu sheegayno in al-shabaab ay ka dagaalamayso kooxo kale waxa uu yiri taas waxay maqraati ka tahay maanta in calankii shabaab ay madoobaa taaladii ree Laascaanood ugu taalaasanta wax in lagu buufiyo macnaheedu inay magaaladii calankii shabaabta laga taagay taaladu astaamihii ugu weyn ee magaalada moogta calankii shabaab lagu xeeyo saan bay noqonaysaa Maxamed Kaahin waxa uu yiri ciidamada ka dagaalamaya Sool ama magaalada Laascaanood waa Puntland waxaana ka dambeeya ninka la yiraahdo Deni waxa uu eedaas ka fogeeyay oo dhahay in kulahayn wax lug ay raatoonayeen shaqo kulahayn dawladda federaalka oo aad moodo isfahan inuu aad uga dhaxeeyo soo dhawaanayo Xasan Sheekh iyo Soomaaliland xamar shaqo kuma laha iyo Soomaaliya labada eray soo qaad xamar iyo Soomaaliya min shaqo kuma laha wiilina ciidamada ka qayb qaataan Deni shabaab ay ku heshiiyeen Deni baa ka qayb ka wiilio ugu weyn oo ciidamada Puntland Deni baa qayb ka waxa inta soo raacana waa shabaab waatan magaalada ku buufsay duniduna waan u sheegaynaa waxa uu si raaciyay Deni inuu ciidamo hor le shalay garow ka keenay xalayna uu ku soo daadgureeyay magaalada Tukaraq Tukaraq waxaan la soconay Soomaaliland baa qabsatay muddo dagaalku intuu socday way ka soo baxeen marka wuxuu ciidamo garow laga keenay ya Tukaraq la keenay oo fara badan ciidamadaas inuu ujeedada u socdaan waa un Laascaanood iyo sida xagga uu dana u sii tagi lahayn marka ninkaasi intaas dabcan hadalkiisa ugu xursanaa oo ka waxaynay laakiin waxa moodaa in leeyahay shabaab baa calankii taaladii lagu buufiyay inay taawada si kala sifogeyntii calanka uu sheegayo wuxuu yiri calamada dawlad deegaanada la watay kan waa kii Jubbaland baa la dhahayay kan waa kii Galmudug baa la dhahayay kan waa kii maxay baa la dhahayay kan waa kii Puntland baa la dhahayay kan waa kii Khaatuma la dhahayay calamo badan baa la soo galay ugu dambeyn calaamadii oo dhan waa la wada dajiyay buu hal mid ka taagan budokii al-shabaab halkii laga taagay calankaas calan taagan ma jiro calanka Khaatuma ka taagan al-shabaab iyagu ka dhigeen iyagu taala
laakiin calanka uu leeyahay waa kalarka madow taalada lagu buufiyey timihii dadka madowaan arma la dhawo calanka shacab aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa wariye Muxiidiin oo iiga xog waramayay ama inoo falanqeynayay hadalkii guracnaa ee maxamed kaahi waa wasiirka arrimaha gudaha ee Muuse Biixi uu ka sheegay maanta madal ku taala Hargeysa kaasi oo ku sheegay in al-shabaab calankeedii laga taagay magaalada Laascaanood dhanka kale uu sheegay cidda kula dagaalamaysa Laascaanood ay yihiin al-shabaab iyo ciidamada Puntland meel ay ku heshiiyeen ma garan karayso habbooni darana dhanka kale waxa uu ka nasahay ama uu amaan dusha ka huuyay inaanay dagaalkan shuqul iyo shaqo toona ku lahayn xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya tan iyo intii barnaamijka kan isugu soo noqon doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo ammaano Allah